Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa uu socdaal ku tagay degmada Daynile ee gobolka Banaadir isagoo halkaas kula kulmay ciidamada xilligaasi sugaya nabadgelyada. Ra'iisul Wasaaraha oo la hadlay ciidamadaasi ayaa waxa uu tilmaamay inay qabanayaan howl wanaagsan isla markaana loo baahan yahay in si waafi ay u gutaan howlaha qarankooda ay u hayaan, waxaana geesta kale uu tilmaamay inuu si weyn ugu mahad celinayo howlahan ay ku guda jiraan. Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu soo hadal qaaday kaalinta ciidamada ay ku leeyihiin geedi socodka qarannimada Soomaaliya oo hadda ka soo bixiya kabanaysa colaado muddo dheer ay ku jirtay. Waxa dhinaca kale uu gudbiyay salaan uu ka siday madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale shacabka, waxaana uu tilmaamay in loo baahan yahay in ciidamada iyo shacabku ay si wada jira u shaqeeyaan. taagteen ama u soo jeedaan sida qarankiina u badbaadi lahaydeen annagana waa idin garab taaganahay. hawsha wanaagsan oo aad haysaan iyo dadaalka anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed oo ku mahadsantihiin, laakiin waa inaad dadaashaan oo cadawga ka nadiifisaan magaaladaanu amni ah la idin ka rabaa hadii ilaahay